أحمد محمد إسلام إلهي هدو إدمو أفر تصحى وحنرد وحنرد hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa ku guuleystay mudane Axmed Maxamed Islaam بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo dalka dadka iyo diintuba ku jirto dhowrana shuruucda qaranka iyo tan Jubbaland وبالله التوفيق xildhibaanada labada aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada Jubbaland odayaasha dhaqanka qof kasta oo halkaan fadhiya oo meeshiisa ka qaadanaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo odayaasha dhaqanka oo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo doorashadan sameeyey oo aan rabo inaan u mahadceliyo kulligood iyo hoggaankii doorashooyinka oo komishinkii doorashooyinka ee isaguna broseskan soo daadihinayay guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland iyo guddoonka baarlamaanka oo suurto geliyay inay qabsoonto doorashadan hadda ugu dambeysay madaxweynaha lagu dooranayay waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo doorashadaas aanan idiin sheego mas-uuliyadda ay saarteen insha allah inaan ka soo bixi doono waxaa kaloo u mahadcelinayaa musharaxiintii igala qayb gashay tartanka oon iyagana aada ugu mahadcelin doono mahadcelinka bacdi guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanadii ka soo qayb galay ee kulligood aan u mahadcelinayo waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo midnimada iyo wadajirka midnimada iyo wadajirku waa wax muqadas meel looga wareegana ma laha Soomaaliyana maanta waxay maraysaa xaalad u baahan isku tashi walaalnimo isu urxaanasho wada shaqayn midaasaana waxay tahay midda maanta Soomaalidu ay meel ku gaari karayso liibaanteeda adduunka iyo midda aakhira labadabana ay uga suurtoobi karayaan inaan midnimo ahaano inaan wada jirno inaan wada soconno inaan wada tashanno waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed maanta waqti uga baahan yahay ma jirto waxaynu soo marray xilli aad u adag dagaal sokeeye uu jiray xaalado adag ayna soo mareen waddankeena waxaa ilaahay mahadiya maanta waxaan ka soo gudubnay marxaladii qabiilka iyo la kala qoqobayay maanta cadowga aan leenahay ee ugu weyni waa shabaab oo u baahan inaan isaga dhulkeenna ka xorayno oo dadkeenna aan isu furno waxa soo raaca ee caqabad inagu noqon karaa waxay noqonaysaa maanta lama odhan karayo qabiil lama odhan karayo koox lama odhan karayo cid kale waxayna soo raaca waxay noqonaysaa keliya innaga oo ay naga timaado isku xidhnaan la'aan midnimo la'aan wada shaqayn la'aan iyo hoggaanka oo khalad inaga galo waayo waxa ugu fiican aan u baahannahay waxa weeyaan in la helo hoggaan saxan oo hoggaanku ay noqoto inuu qaato hoggaamintiisa isku wadkiisa isu keenista bulshada taasaa markaa waxay noqonaysaa midda ilaalinaysa innaga midnimadeenna iyo wadajirkeenna waayo waan ka soo gudubnay xilligii qabiilka maanta midnimada Soomaalidu waa muqadas
soomaaliya soomaali baa iska leh waxa isu keeni karaa waa soomaali waxa taladeena ay ka dhaxaysaana waa innaga shalay waxaynu ahayn 5 beelood waxaa la yidhi 4.5 waxaa lagu daray beel lixaad oo aad u xoog badan beel lixaad iyo beel 7 soomaaliya arrinteeda waxba kama qaban karayso waxaa wax ka qaban kara oo tashan kara oo wax isweydiin kara oo wax isla sixi kara waa innaga waxay la tahay innagu aynu ka shaqayno midnimadeena iyo wada jirkeena amniga waa muqaddas lagama gorgortami karo inaan amniga ka shaqayno waa laba huraan haddaan amni weyno nololi ma jirayso aabbaha meeshaa fadhiya hooyada ka agoonka ah ka naafada ah ka shacabka ka ganacsadaha qof waliba wuxuu ku noolaan karaa inuu helo amni iyo kala dambayn aan ka wada shaqayno amniga aan ugu tagno shabaabka iyo kuwa inala dagaalamaya meelaha ay degan yihiin waxaan rabnaa inaan kala shaqayno dowladaha deriska ah iyo ciidamada amisom iyo cid kasta oo amniga aan wax naga dhexeeyaan inaan kala shaqayno amni inaan kala shaqayno deris wanaag inaan ka wada shaqayno sidaan u horumarin lahayn amniga isagana kaashan lahayn dagaalka shabaab ee ah urur caalami oo dagaalkiisu uu sidaa yahay iyagana aan doonayno inaan cid walba aan uga mahad celinno nagala shaqaysa amniga annaguna aan doonayno insha allah inaan inta u dambaysa kala sii shaqayn doono wada shaqaynta waxaan rabaa inaan idiin sheego fulaxantiisa ma mooga khayrooduna waa iska badan tahay haddaan la wada shaqaynina qofna keligii waxa ma qaban karayo waxaan rabaa marka hore inaan codsado inta i soo dooratay iyo inta odayaasha iyo inta reer Jubbaland inay igula shaqeeyaan waxay ii soo doorteen oo qof waliba uu igu caawiyo kii talaysiin oo tala naasaxa siiyo shaqada aan qabanayo taasi waxay keenaysaa marka inaan kalsooni ku shaqeeyo ammaanadaadii dhibteena aan si fiican u guto waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii maamulaysay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya manihin qolo gooni isu taagtay oo madax bannaan oo wax kala sheeganaysa waxaan nahay dowlad goboleed xubin ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan si dhow wada shaqayno ka wada tashano danta ummadda ka wada tashano saan hore ugu socon lahayn iyadoo aan cid inoo dhaxayn inaan annagu wada shaqayno ka wada shaqayno waxaan leeyahay soo dhowaada madaxdayadii baa tihiin waa dhulkaad xukumayseen meel kale idinkama jirto waxa innaga dhexdeenna inaga jira innagu inoo yaallaa instructionna meel kale lagama soo bixin karo cid kalena wax kale inooma yeedhin karto waxaan diyaaru nahay inaan idiin aqoonsannahay mas-uuliyiintayadii weliba aan rajaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha iyaga baarlamaanka wakiiladoodii baa joogeen insha allahu inay mar dhow yimaadaanoo dadkooda ay u baarakeeyaan waxay doorteen kalena shaqeeyaan lana wada shaqeeyo Jubbaland waxay ku dhisan tahay laba xaalo iscafis isasaamax iyo wada shaqayn markii ugu horreysay aan dhisaynay waa la garanayaa buurihii la kala saaraa waxaan gaadhnay inaan qof walba ugu tagno ridda uu joogay ka soo saaro u yeedhno cafis ka dalabno sidaasaan ku dhisannay waayo meelaha kale oo dhan ee Soomaaliya way yara kooban yihiin oo inta badan markii la sheego calaamad qoysiga waxbaa lagu sheegaa iyo in yar laakiin tan qof kastoo Soomaaliya dabciisa ku jira garanaya ka shaqaynaya waxaan rabaa inaan iscafino oo tasaamux aan samayno qof kasta oo wax naga tabanaya kuwa mucaarada waxaan diyaar u ah inaan la fadhiisanno la xaajoonno qancinno waxay ka hadlayaan aan kala hadalno waxaan rabaa kuwii aan soo wada shaqaynay iyo kuwa hadda bannaanka ka jooga wax tabanaya kulligood anugu waxaan rabaa inaan cafiyo cid kasta oo wax aan u qabo anna waxaan codsanayaa in la cafiyo qof kasta oo wax iga tirsanaya
ay ugu horeyso madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu ka ogyahay waxaan rabnaa inaan dhisno bays ama saldhig ama gogol wada tashi oo aan doonayno inay laga ambaqaado ay u noqoto halkani udubkii Soomaalida isu keenisteeda isku duubnideeda wada tashigeeda iyo wanaageeda laga sii ambaqaadi lahaa hadii la hayro waxaan rabnaa in laga shaqeeyo sidii la isugu wadi lahaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo Jubbaland ay u noqon lahayd hooyadii isu wadista iyo isu keenista iyo wada shaqeynta Soomaalida waanan dhigaynaa gogasha hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inay miro dhasho aad baan idin salaamayaa warkayga waxaan u dhigdigan doonaa khudbadaha dambe soo socda hadda waxay aad ujeedadu mahadcelin iyo mahadnaq laakiin waxaan rabaa inaan ilaahdo Soomaaliya Soomaali baa iska leh Soomaaliya danteeda waxay ku gaari kartaa iyadoo tashata Soomaaliya xaaladda ay maanta marayso hadday wanaag tahay iyo xumaan tahay iyada iska saari karta beesha lixaad roolka ay leedahay waxa weeyaan wada tashi isu soo jiidis iyo tashiga iyo waxaan u baahanay inay noo fududeeyaan cid ay taladu ka go'day waa Soomaali ilaahay midda ay nagu soo duwo ilaahay taas hayru soo duwo oo beela kale yeena raadsanina teeni ilaahay aan ugu anfaco oo madaxdeena tu dowlad goboleed iyo tu federaalaba ilaahay ha garansiiyo wax iyaga ka dhaxeeya inuu iyaga ka dhaxeeya cid kale ay la wadaago aad baad u mahadsantiin waxaan rajaynayaa in saamaxaadu badato waxaan rajaynayaa xildhibaanada labada aqal insha Allah gogol badan waa la idin dhigi doonaa waxaan rabaa arrinta galmudug iyo meel kasta wax ka jiraan oo Soomaaliya inaan xalina hadii la yiraahdo halkeeda gaadhne xildhibaano mas'uuliyadda idin saarani waa midda maanta la idinka rabo Soomaaliya inaad u guntataan oo aad ka shaqeysaan idinka iyo madaxdiina federaalkii isu keenista iyo mideynta dalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka waxaan halkan hadda ka hor ka diray dagaal ka dhacay meel fog oo laba beelood isku laayeen odayaal Soomaaliyeed baan halkan ka diray way tageen oo way ku soo guuleysteen odayaasha dhaqanku xuduud ma laha wax kasta oo jira waayo kan federaalka ee xildhibaanka iyo kan state-ka iyo ka dawladda dhexe inta odayaasha dhaqanka asaaso odayaasha dhaqanku ha ka shaqeeyeen midnimada iyo isku wadista iyo isu keenista Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa inaad muujisaan midnimada iyo gacan isku haynta Soomaaliya oo intii la istaago gacmaha la isqabsado iyadoo la muujinayo midnimada Soomaaliyeed iyo isku wadista iyo taladu inay inaga dhaxaysan